waxaan idin haynaa warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya, caalamka iyo ciyaarihii Euro 2024. aanu ku bilownay wufuudka kala socda dalalka ku midoobay beesha East African Community EAC ayaa kulan toddobaad qaadan doona waxa uu uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana lagaga hadlayaa diyaarinta dhabahowleed ay Soomaaliya si toos ah ugu soo gasho ururkan. xogayaha guud ee EAC Veronica Mweni Induva oo si rasmi ah kulankan u furtay ayaa iftiimisay muhiimadda taariikhiga ah ee dhabahowleedkani uu leeyahay sidii ay Soomaaliya baloogan u soo gali lahayd. waxaana Induva oo sheegtay in Soomaaliya ay rasmiyan ururkan ugu biirtay bishii Maarso kadib shirki ku qabsoomay magaalada Arusha ee Tanzania imika loo baahan yahay farsamo ahaan in ay si toos ah qayb uga noqoto ururka. waxaana intaa raacisay in galitaanka EAC ay Soomaaliya u sahli doonto inay hesho mashaariicda horumarineed ee heerka gobol sida jidadka, khadadka tareenada iyo shabakadka korontada. iyadoo intaana raacisay in habhowleedkan ay isla fulin doonaan Soomaaliya iyo ururka EAC. dhabahowleedka ay Soomaaliya soo bandhigtay ayaa si cad u qayaxaya habraaca iyo jaantuska ay Soomaaliya mari doonto marka ay timaado dhaqangelinta siyaasado waafaqaya kuwa gobolka si taasi ay u geysiiso inay ku biirto customka iyo suuqa EAC. waxaase xusid mudan in 5 dal oo qora oo kamid ah 8 dal ee ku midaysan EAC ay la imika dhaqangeliyeen dhabahowleedkan taasoo ka dhigan in ay si xor ah u kala ganacsan karaan kadib markii ay xeerarkooda iswaafajiyeen. Cabdisalaam Cumar Hadliye oo madaxweynaha Soomaaliya uga wakiil ah ururkan ayaa isna rajo ka muujiyay iskaashiga dhexmari doona dhinacyada ku midaysan ururkan EAC. Soomaaliya ayaana imika laga dhowraya inay soo doorato ilaa 9 xildhibaan oo ku biira baarlamanka ururka EAC ee East African Legislative Assembly. waxaa intaa dheer in looga baahan yahay inay soo magacaabaan garsoore isna ku biira maxkamadda ugu horeysay ee ay beeshu yeelato taasoo lagu magacaabo East African Court of Justice. iyadoo wixii markaa ka dambeeya ay Soomaaliya si rasmi ah u godageli doonto howlaha uga aadan ururka EAC. dhan kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa tegay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga waxaana halkaa loogu qaabilay si heer hoose ah iyadoo loo soo diray wasiir dibadeedka dalkaasi Hakan Fidan. waxaana war kooban oo lagu soo qoray wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu u dhignaa wasiir dibadeedka Hakan Fidan ayaa la kulmay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya oo isku arkeen Ankara balse xog intaa dheer lagama bixin kulanka iyo wixii lagaga hadlay. madaxweynaha Turkiga ee Rajab Tayyip Erdogan oo ka soo laabtay kulankii wadamada G7 ee ka dhacay magaalada Bari ayaan qaabilin madaxweynaha Soomaaliya. wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa intaa raacisay in Soomaaliya iyo Turkiga uu dhex yaalo ama ay wadaagaan heshiis taariikhi ah oo ay ku wada guuleysan karaan waxaana ku abaal sheegteen in ay 150 mashruuc oo horumarineed ka fuliyeen dalka Soomaaliya iyagoo marinaya hay'adda TIKA tan iyo 2011 oo halka markii ugu horeysay uu booqday madaxweyne Erdogan. dhinaca kale ciidamada ammaanka Israel ayaa sheegay inay xireen wiil ku sugnaa xaafad ka tirsan Haifa oo ku taala waqooyiga dhulka ay Israel imika haysato. waxaana ku eedeeyeen inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Daesh ee dalka Soomaaliya sida ay daboolka ka rogeen booliiska Israel. arrintan ayaa waxaa qoraya inta badan warbaahinta Israel sida Jerusalem Post, I24, Israel National News iyo warqadka xaq jirka ah ee Jewish News Syndicate. waxaana eedeysanaha lagu sheegay lab 17 iyo barjir ah oo ku dhaqan aagga wada muslimka ah ee Ara oo hoos tagta xaafadda Hadera ee ka tirsan Haifa. waxaana ninkan soo xiray booliiska xeebta oo sidoo kale kaashanaya hay'adda nabad sugidda Shin Bet. waxaana sheegeen in wiilkani sameeyay isdiyaarin badan oo uu ugu biiri lahaa kooxda Daesh kuwaas oo ay ku jiraan in uu qoray dardaaran, inuu lacag ururiyay, inuu dalbaday baasaboor qalaad iyo sidoo kale inuu la xiriiray wax ay ku sheegeen canaasiir cadaawo ah oo uu kala hadlay dhanka khadka internetka. waxaana imika durba la soo taagay maxkamad isagoo ku eedeysan dambiyo ka dhan ah ammaanka. ciyaaraha qaramada Europe ee Euro 2024 haddii aanu isha marinana Cristiano Ronaldo ayaa noqday laacibka ugu horeeyay ee ka qayb gala 6 koob oo qaramada Europe ah kadib markii uu saftay kulanka ee Portugal 2-1 ku dhifteen dalka Czech Republic oo ay kula ciyaareen gegada Red Bull Arena. Ronaldo ayaana saftay kulankiisii 208aad iyadoo qawaarkan ay laacibiinta hibada leh ee u safan Portugal oo waxoogaa ku dhibtooday inay ka badiyaan Czech Republic ay aad iskugu dayayeen inay u dhigaan goolkiisa 15aad ee tartamada qaramada Europe. waxaana dalka Portugal ugu dambeyn dirqi kaga fakaday Czech Republic goolasha u kala dhaliyay Haranash oo saxiixay gool iska dhali ah iyo Conceição oo daqiiqadii 92aad goolka guusha u saxiixay taasoo ka dhigan in daafaca Czech ay amaan iyo aadba kala tageen kulankan. kulamada maanta dhacayana Germany
ayaa Hungary ku qaabili doona gegada Stuttgart Arena waxaana xigi doona Croatia oo madadaalin doonta Albania kahor intaan uu dhicin kulanka ugu dambeeya ee Scotland iyo Switzerland. haddii aanu eegno safafka laga yaabo ee Jarmalkana dhinaca Jarmalka waa Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz iyo Havertz. dhanka Hungary waa Gulacsi, Lang, Orban, Shalai, Bola, Adam Nagy, Shaver, Kerkez, Shalai, Szoboszlai iyo Farga. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.